كيدا كيسا ومين نحرنا ودو منايا وادو وجيلا وادو كارقرقريا الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام waxaa martin oo ah xildhibaan maxamed saleebaan bootaan gaar haye oo ah xildhibaan hore dad yaqaan anthropologist iyo dhaqan yaqaan sociologist ku soo dhaw barnaamijkan aan kugu wareysanayno waxa la yiraahdaa dhunkaal waxaan ku wareysanaa dadka Soomaalida oo maartay aqoonta leh iyo ganacsatada ragga diinta maxaa la yiraahdaa siyaasiyiinta dhankaaga midig calankii baa saaran dhexdeennana waxa ah hashi mandeeq astaan noo ah maxaa la walwal online iyo wakaalada warbaahinta walwal waxaan leenahay website waxaan leenahay YouTube waana lagala socdaa waxaan leenahay web page weyn marka ku soo dhawow anigana dhankayga midig waxa saaran waxa halkan iga ah waxaan leeyahay fila Soomaaliya calaamadahaas baa ka muuqan doona barnaamijkana dhunkaal baa leeyahay ku soo dhawow ودوه حسن ودوه ما صدق aad baan ugu faraxsanahay inaad maanta nootin soo booqatay waxa weeye horta bal ku markaad soo dhawaatay kadib studio-ga ku soo dhawaato waxaan jecelahay inaad su'aalo maartay aynu ku weydiino hadii ilaahay ka dhigo su'aasha koowaad maxay kula muuqataa marxaladda siyaasadeed Soomaaliya maanta ku suganta والله حسن مرحلة سيارة بدل بالله صور كراه marka sawirada qaar waxay ku soo tusayaan inay ku xaalad adag oo adag waqtiyada hore la soo maray ee marmarka tusaa marmarna waxa ku soo baxaysa in waxyaalihii hore isbedel jiro xogaa maartay laga soo kabado soo kabasho ay muddo soo socotay marka dib badan baa jiro oo markaad eegtid waxyaali bariinooda dhacayo haday doonto iskhilaafyada jira ee maamulada sida wareer nabadgelyadii tahay maxaan ku sheegay sida khilaafyadu badan yihiin sida mataqaana dagaaladu jiraan sida dhaqaaluhu jira meelahaas oo marka ka soo gurtid waxa ku soo baxaya waji aan fiicnayn baa ku soo baxaya waqtiyada aynu soo maray marka loo sawiro oo xaalado badan adarkiis laga soo kabto oo laga leeyahay wuxuu isma bedelayna waxaa soo yara tukubaysaa sidii hore wuxuunba way yara dhaantaado wuxuunbaa soo yara tukubaya laakiin tukubkaasu marka loo eego 20 sano ee carta markii laga yimid dowladdii hore marka burtay dib loo abaabulay dowlad kale tukubku mid aad u gaabinaya ayuu ahaa marka halkaa laga qiyaaso waxaa ku soo baxaysa inaynu meel gaabisa marayno ama aan hor socod jirin ama waxyaabo marka qaarkoodna aad soranaysidba way ka soo daraysaa meeshii laga filayay ka soo reeb badan way ka soo daraysaa soranaysaa adigu de waxyaabo badan baa ku soo baxaya marka gaargaar u kala tilmaantid ama u taataabatid marka waad ogeed meeshii bergidhowda isla gaadhay arrintu oo wali waxaad soranaysaa khilaafinta leeg ilaa marka laga soo bilaabo ururadii dhowr 10 ka jiray 90yadii SS faraha badnayd marka kuwa laga soo bilaabay waxa khilaaf bergidhood meeshu gaadhay wali waxaan malaynayaa heerka ma gaadhin oo heer noocaas oo ma taqaanay xogaa muran ugu jiray waqtigii magaatiga meelaha la joogay qoliya marba ka xaraaq marba soo noqdo waxyaalaas waa jiray laakiin khilaaf ilaa heerkaas oo la soo tagi waayo maartay waqti badan lagu geliyo waxa laga hadlayaa ay koobnaayeen oo la kaliya ay ahayd doorashooyinka si u dhacaan waqtiga dhacayaan maxaan ku sheegay qaabka u dhacayaan kaliya ahayd iyo muranku meeshu gaadhay mayna soo marin intii burburka soo reesaado marka dhinaca ka soo wartay waxa ku soo baxaysa in xaaladda wadanku fiicnayn ama aad tiraahdo hadii hadda la dhoodhoobo la soo keenay maxaa soo bixi kara أصابح كرده وحد بدأ إن مثلا دمبست هوسكي مارتي دمبست كنول أي أرنت هذا الهشيسكو وصن هاي المد ده بقول كيا بقول ودسك هشيس والأكثر سوى الأكثر وصم يستانا وحنا قاتيان أي الهشيسكو هين ونقوح غصب على هذا اللي سوى حيده واو وحي شيء خلاف كي ولي هوست كنول هذا أي طيب مركز تاسنا وحكي صباحية
khaladaad badan way yeelan kartaa waa waxaan marta la isla wada garanayno heshiis lagu ahayno yara maartay caynka lagu sameeyay maartay iga sameeyno iyo sida madaxweynuhu ku soo celiyay waa maartay waan tanaasulay iyo ma garanaysaa nooca ku yimid waa uu dambaskaas uu maartay hoosta ka nool dhuxusha ka jirto marka anigu saasaan u arkaa dadku xaaladiisu ay tahay waaya waa mahadsantahay waxaad ogtahay oo kana mid ahayd xildhibaanadii soo maray intii dowladaha dambe loo aasaasay 4.5 ku imanayay oo Bugatti iyo waxaan leeyahay Carta iyo Bugatti Djibouti Muqdisho laba goora haddeerna dee waxa la rabay in xisbiyo loo guuro oo xisbiyaha la yiraahdo la sameeyo oo la diiwaan geliyay oo guddi baa la sameeyay commission oo shuruuc baa la sameeyay wixii misna waa laga guuray wax la yiri halkeenna hore inuu wixii maxaad u malaynaysaa maxaad ka odhanahay baarlamaanka ayman doonay والله برلمان كاس هذا صباح يا دي أرنتا هذا كشيء كيري يبو يكون لقلي dadka soo saarayana waa dadka hadeerto ma taqaana aynu xaaladooda arkayno maartay laga sugaya marka dambeysana baarlamaanka dadka raba ama soo doonanayo way ka farabataan kuwii hore sabab kasta ha ahaatee markay farabataana buuq badan iyo karays badan iyo quality-go asil rabay ayna soo bixin iyo wax badan baa istamara marka dhibaatada ugu weyn ee jirtana waxa weeye oo ilaa Carta soo jirtana waxa weeye 4.5 waxa la yiraahdo intuu jiro lama heli karo baarlamaan sidii la rabay nabadgelyada qudhooda qayb ka qaadanaysa dalka jirta maxaan ku sheegay maamuladan oo sharciyadeeda iyo sida mataqaana ay u sameeysan yihiin ayaan hagaagsaneyn qayb ka qaadanaysa marka mar raba lama fili karo inta waxyaalahaas jiraan in baarlamaan sidii loo rabay in la helo ay soo baxo marka waa khasab waxa midkii hore kala mid ama ka liitaa yaa u muuqanaysaa inuu soo baxayo sababtoo sababa ma yaalin meesha aad oran kartid waxaas ma taqaana bedelaya oo saas isu bedelaya oo mid wanaagsan ku imanaya sababa tirsido noocaas oo meesha inuu ka muuqda ilaa hadda ma muuqdaan odayaashii baa soo xulaya maamul goboleedku waa kuwoodii maxaan ku sheegay 4.5 weeyo reehebel bow waxkeen qolo walba midkii hadday doona sidii bari hore biyiga midka ugu dagaal badan ama ugu rabsho badan oo aan xag aqoon laga eegin aan xag maamul aqoonaan laga eegin aan xag siyaasad iyo aragnimo laga eegin yaa laga yaabaa in uu yimaado waxaa dhacda 245 baa Carta lagu soo bilaabay baarlamaanka Bugatti markii la joogay 275 baa laga dhigay markii waa Djibouti la tago 550 yaa laga dhigay markastoo baarlamaan la soo xulayana inta badan kii hore waa suuqa lagu sii daaya hadii ku qolo cusub oo fresh oo yaa timaada qoladiina 4 sano markay iyaguna meelaha loo rurdiyay yaa iyagoo wixii aad la qabsanba yaa yeelayaadi korabal meesha dhaafo qolo kala imanaysa marka arintaas waxay keenaysaa dhibaatooyin fara badan qoliyii hore meesha ka baxay kulligood siyaasiyiin bay noqdeen oo shaqo kala oo ay aadaan ma hayaan oo ay qof walba shaqada helay uu aadi lahaay halkana uu waayay marka waxay ka leefaysaa waxaan u muuqanayaa qolada cusub وأرجمديسا وحتوسيسا قرار عصب قرار كلي تاني تاي وسووا حلقة حاجة وهي أرجمة ومدة هستي إنه هالك كسوريو مركا وحيو معارضين بالبلاوية مركا معارضين بدرس هالك قبل كفر فريسانة يا كمدها وحوا هاي وحوا قرر ما يا ده حسب الله يا لسنا شوية مركا درين تاس هذه الشيء دتكي أي مر قرار عصب إيمانته قرار حب الأولاد أنا كبحث ماشي ومشكلة ده خاصة ما هني ولا ضد بس كفردية لكن وين حسابته كل شرطة هوشة ضد بالوايع على النمر التحقيقية أقول التحقيقية غف باقي كيسيد عندي ما يسوي واحد قرابات يصير يدور خوش قبطية واحد بدني التحقيقية وقام ميسان يوحكوا يمادان لكن حدين نقطه ما أنت أنا دريه ولا شيء ما أنت دريه ولا فريسانية ما أنت هي ولا شيء ما أنت هي ولا فريسانية واحد لو صار بيس لوجا دقي واحد بيس لوجا دقي لوجا دقي أين تشيرين واحد شكرني سمره واحد شكرني سو أرنتاس مركا أرنتاس هنا برلمان كونا ساسي أرنت بوغانسا بدك أنا واحد شرتا
wax baarlamaanka 4.5 ka awgii anigu 2007kii baan waxaan ka dambeeyay qoraal baan sameeyay waan doonayay inaan markaa qoro oo warbaahintii soo bandhigo waan iska daayay saddex arrimood baan kaga hadlay 4.5 kii dhibaatadiisa maamul goboleedadan iyo qaabka loo dhigay inay wax wanaagsan ka soo baxayn qoladan leeyahay diasporada markaa ku cusbay dalko aan u arkayay inayna maartay saxayn qaabkan ay dawladda badan ugu bateen ama matalayaan iyo qaabka ay u shaqeynayaan iyo aragtidooda iyo waxa waa imika wax badan ba iska bedelo imika ninka 20 sano ama 15 sano diaspora ka soo baxay dalka joogay diaspora lama oran karo dalkii waa uu degay waa arag ku yahay laakiin marka way nagu cusbaayeen nin mar cararaya markii xoogaa maar dagaalada meel ka dhacaan oo diyaarada ku boodaya markii xoogaa dhaqaale helaan dalkii waxa ka galeen meel kale oo cararaya loo aragtay ayaa ka qoray marka 4.5 ku dhibaatada uu leeyahay waa kuwa tuxmaa ka soo baxaysa cadaalad darra ku jirta oo reeraha kan matalan aad baan meel u fiiriyado بديه كونفرنس الطرياني ما هو تراكوب كسبي ما حد كان استاتيكا ما حد كان استاتيكا الطرياني أي 1932 تراكوب كسبي تراكوب كاس مركا حصلنا سوا وحكتي مرة يعني وقبيلوي كوساب سنة يدقن لبضة وكلا سوينا يو مركا قبيل الذي تريد شيء يا هلا كل جنيه مركا صار خير برجاس مثل كوتن يلا وكرو كره أها يا خير اللي بقول غفها labadii reer ba saddex xilbaan ba haystaan marka halka waa garan kartaa cadaalad in cadaaladii aad uga luntay reerkii bariga diinta ahaa uu qolo walba uu koreysay reer walba uu koreeyaa waxa arkaysaa reer 1600 ahaa iyo reer markaa 29 ahaa oo saddex xilbaan haysta waxyaalaha oo maaha waa imika meel yar soo taabanaya waa wax ilaa xushan dalka oo dhan iyo qabiilooyinka dhan bay xushantay marka taasna cadaaladii ayaa ka xun waxaan daraasad ku sameeyay bariga soo yar fiiriyay 4.5 ka marna hadii bal dadka xildhibaanada iyo reerahooda ee ogol in 4.5 ka loo gudbo bal deegaan iyo wax loo gudbo iyo intaan ogoleen waxaan malaynayaa boqolkiiba 30 yaa waxay soo baxeen inay ogolaan karaan ama rabaan in loo gudbo bahalkan oo inta kalena waxay aaminsan tahay hadii 4.5 ka laga baxo inay wax ku waayaan وحوالين كده مهمتنا معها حلبانا بدل هنا وين دولة اللي حلا حلبان كنا كرابة ما يلانا يو حدا دولة ولا سن لهين وترى هنا واحد بسوكرين مايو ولا شبكة اللي كنت منو جالسيني ووقت جاس قلنا إذا كتير دمرها صاروا يا قلا توقف فوقنا هذا شتو أمور بشتو أمور كتو هم قررنا ما قيمة بدنا ما تقولنا سمعت شتو مركب حلبان كو وحنا معنا يلانا أما حقبض يلانا أما القيمين كرا مركا أي دولة حقاقسن يننا بوناسن وتشرو كوش قينايو هذي كلا ركيب هذي واحد غير لصيو حكمة يدرك كوسو كورني الله ماركو مركا فور بالفوكس دلوقتي وين والله تصنع يودك كو هيا waxa weeye waa mar badan baynu ka sheekayn doonaa waxaan leenahay dadka dibadda jiray oo Soomaaliya oo qaxay oo dayuuradaha lagu qaaday oo badidoodu dadii adigu iska iyagu tageen waa jiraan dad badan oo sponsors wax la yiraahdo lagu qaaday wadanka waa jireen dadkaasi hadda Yurub iyo Mareykan tageen waxtar badan bay dalka u galeen oo dadka muddo badan bay biilayeen iyaga laftigooda xagga markay tagaan laba nooc bay noqdeen qolo nolosha ka dhacday iyo qolo wadankay la xabartay siyaasadii iyo qaar qoladii marka wax baratay iyo qoladii dhaqanka maartay wax fahamtay inuu kuma soo noqon dadkan caydha ah ka soo doona ma oran kuwii nolosha ka dhacay ayaa la igu soo celiyay kuwii xildhibaan inoo noqday kuwii wasiir inoo noqday dawladana wax bimooda dawladda ka dambayso inay yaa dawladda baasaboor sita ay noqotay marka waa dhibaato kale oo iyo jirta waayahay markaynu ku sii socono aqalka sare waad ogtoo ma jirin dawladda baa lagu bilaabay waqtiga Xasan Sheekh baana la qaybsaday goboladu saddex bay lahaayeen laakiin misna sidii maaha oo goboladii maamul goboleed baa misna loo rogay oo laba gobol oo bil misaal dawlad goboleed laba gobol waxa laga yaabaa inuu haysto halku ka heli lahaa 6 ka heli lahaa 8 haysto laba qof oo kale dheeraad ku ah goboladiisa oo waxaad markaa dareemaysaa gobollo kale in dadka laga soo jaray bal ka waran especially dadka Soomaaliya sanaagna waa ka qayliyaan arrintaas waxay leeyihiin waa ku dhacana gobolka Banaadir laftigiisu uu ka qaylinayay saddexdiisii meel la qabtayna lama yaqaan
xasan oo aqalkaa sare horta anigu waxaan arkay samayntiisu marka horeba inay degdeg ahayd waayo kii kaloo aynu haddeerta ka hadlaynay arrimihiinsi waytaynu ka sheekeynay wuuna far badan yahay oo 270 iyo yuu gaadhay sidiisana adduunyada baarlamaanka bableeshika lagu jaangooyaa maaha tiro iska soo xaabiyo maartay waa baarlamaan halka iska fadhiiso dheh baarlamaanka jeer bableeshika intuu leeyahay ayaa baarlamaanka qiyaasaan loo socdaa marka dalkiina sharci ahaan iyo nidaam ahaanba muu fadhiyin markii la sameeyay in lagu degdegay isagoo kii horeba 4.5 kaas iyo maqaalo xumo iyo saysasho iyo waxyaalo badan ka jireen oo saxnayn in kana laga dulgeeyo ma ay wanaagsaneen maalmo dhaxaasoo arrimahaas iyo baarlamaanka buuqsan ka fakarayay waxaaba wanaagsanaan baan 54 kaliya inta dalka xaaladiisa xag nabadgelyo iyo xag dhaqaale iyo xag siyaasadeed uu ka fadhiisanayo in kooban oo 54 ka badnayn in baarlamaan looga dhigo oo taladiisu kooban tahay waxna garanaya sababtoo markii madaxdu badataba mushkilada iyo talada fariin baahnana way badanaysaa intaas oo wada gaari bullet proof مثلا haddaynu waa aragnimadeenna ka soo qaadano qoladii aska tahay ee qabsatay kaanka 25 bay ahaayeen markii qaar adigu baxay laakiin 20 iyo wax dheer bay isla ahaayeen 76 bay waxay bilaabeen wax la yahay golo dhexe oo 76 qof buu ahaa marnaa maalinta taladu way baxday madaxdii ku baahatay dadka waxay Soomaaliya ku baahatay hadii kuugtu badato maraqa xumaada marka horta badashada madaxdu way wax hagaagsan badan dhaqaalaha lagu sargooyaa bableeshka lagu sargooyaa talada ugu dhisay iyo inuu urursaata lagu sargooyo waxyaalo badan baa loo xisabto u baahan marka way aqalkaas sare in ma taqaanaa waxaan isaga kaliya ka dhigo 54 ku soo koobo inta dalkeenu balsidhig oo soo qabsanayo waxa faraha badan iyo khilaafyadatan ayna jirin waa taas waa koow qodobka waxaan ma 72 baa ka hadlaya aqalka sare iyo dhismihiisa iyo abuurtiisa marka qodobkaas wuxuu leeyahay baarlamaankaas waxa salbeys waa inuu ka yimaado 18 gobol inuu beys yahay ee jiray waqtigii uu Maxamed Siyaad dalka dawladda ay dhacday 90 marka waxa weeye sida hadii la yiraahdo 18 gobol waa Chicago saddex buu noqonaya markii la sameeyay arrin lama raacin qodobkii mushkilooyinka bariyaha dambeena haysta waxa weeye wixii la dhigo dastuurkeenu aan dhamaystirayn ama wixii wali qabiyeen ka wada yaa intii yareeyay jirtay yaa moodaysaa in meel lagu tuurayo ama maartay la dul marayo oo dadka hadiya jeer marka dambaysa ay baba dhaqan xumo xagga sharciga ka baranay ay ku sii kordhito hadii dadku u bartaan in sharciga maalin walba la jabin karo oo jabintiisu ay dambi ahayna wax caadi iska tahay ay waxa ka imanayeen de marka dambe dadkii oo sharcigi wuxuu la noqonayaa waxaan barka badnay marka waxa weeye taas aan hadii aan yara eego waxa weeye gobolada aad iyo aad baarintaas u qarimantay sababtoo gobolada waa ka warqaba gobolada sheegaysa sida Soolo kale iyo sida gobolka Gedo la yiraahdo iyo gobol kale ka mid ah maxaan ku sheegay koonfur galbeed saddexda gobol mid hadda yahay aad u muhiim gobolka Bakool inuu yahay oo malaynayaa mid laba haystaan waxaa jira gobol 5 haysta waxaa jira gobol 6 haysta marka taas waad garan kartaa markaad ka tagtid maamul goboleedkan waad garan kartaa sida ay waxa ugu salaysnay wixiina in ay sharci iyo nidaam ku salaysan yihiin iyo in xataa hadii sharciga nidaam loo waayo ka kale iska yahay lagu meel gaadho inuu noqdo wixii loo wada loo raaco oo la fahmi karo aniga wax sharciyadiisu mid hagaagsan maaha sidii uu qaybsay mid hagaagsan maaha wuxuu soo kordhiyo imka loo karo waxa soo kordhiyo aan sagiyo baarlamaan kale in iskhilaafaan goboleedadii laftigoodu sameeyay baa diiday baarlamaan kale waa tan maanta khilaaf baa dhaxyaalo maalin baa la soo keenado bari soo marka ma arko wax weyn
oo soo kordhiyey gobollada sool iyo sanaag xaalkoodu wuxuu marayaa in xataa madaxweynihii yidhaahdo haddii su-aal laga weydiiyo ka jawaabi maayo waa adagta waxaana jirta oo ay arrintu muuqataa in wax kale keeb xig jiro oo dadkii halgamay weeye daraawiish bay ku suntan yihiin qarbigii ay berigii ishayeen oo halkan fadhiya maaragtay beesha caalamka la baxayna waa joogaan waxaynaba u eg tahay dee xataa ilaa madaxweynuhu yidhahdo arrintaa ka jawaabi maayo in dawladaha qarbiga ah oo maaragtay ay yidhaahdeen yaa dadkaas cadaadiska ay ku hayaan dadkaasina aanay fahminba meesha oo soomaalidan laga adeejay saad la socoto soomaalidu labay ahayd waqtiga halganka qolo halgamaysa iyo qolo gaalada la socota ayay ahayd marka ma kula tahay haddeer inay halgankii dib u aasaasaan dunidu waa qaybsantay oo galbeed keliya hadda maaha bari baaba soo baxay oo dawladaha bariga ay wax la xidhan karaan hubka heli karaan ciidamo ka doonan karaan Iran oo kale iyo China oo kale iyo way la xidhan karaan oo halgankii dib waa ma dhamaan oo nimankii dagaal baa lagu la jiraa maxaad arrinta ka oran wallahi arrintaas xasro arrin dib badan weeye horta dhibka meesha ka jira gobolladaas dalka oo dhan dawlad liidashada dawladda ama tababaridoodu dhib badan baa dalka oo dhan ku jira laakiin waxyaalo badan oo la isku dhaadhaamo ayaa jira oo xoogaa xagga juqraafiga iyo yani dalka meeshaas deegaanka gobolkaas uu yahay xagga dhaqaalaha hadday tahay iyo xagga nabadgelyada hadday tahay xagga maamulka hadday tahay waxyaalahaas la isku dhaadhaamay horta gobollada iyo dalka oo dhan dalku wasku warqo dhibka horta waa mid iska jira laakiin xoogaa xagga juqraafi ahaan aan meeshii bad lahayn beero lahayn maxaan ku sheegay maamul wanaagsan oo si wanaagsan cashuur iyo nidaam iyo ugu sameeya lahayn ayaa moodaa xoogaa inay kaga duwan tahay gobollada kale iyo laba maamulo aynu nahno iyaga mataqaana meesha waxa soo kordhiyaan waa meel ay ama qabsadaan ama ku shaqaystaan ama ka danaystaan marka taas horta qabiil ahaan waqti qabiil imika hub qaabto oo dagaalamo oo dawlad laga dagaalamo waxaad moodaa in taas laga soo gudbay laakiin qoliyaha hore berigi hore islaayeen waxyaalo badan baa ka dambeeyo xoogaa colaad badan oo dambeyntii ma jirin waxaan maleynayaa salaax kooyo labaatankii bay ahayd doonada marka laga tegey 20 ilaa 60kiina dawladda islaynaya kolba waa la wada dhaqmayay si kasta ha lagu wada dhaqmay marka wax badan baa jiri kara oo xisaabo badan way iska jiri karaan laakiin waqtiga imika adduunku marayo uma eka waqti loo oran karo qabiil intuu saabiro inuu dawladda dagaalamo taasoo aad iyo laakiin waradooyin kale in looga wareegayo wada hadal iyo mataqaan meeshii wax laga tuumayo bal qaabab kale loo xidho maartay wax lagu raadiyo qaabkaas haday soo waayaan bal talaabo si uu sigu noqdo laakiin laguma degdegi karo maanta in dawladda qoryo loo qaato loo dagaalamo dawladda qoryo loo qaato dawlad baa la noqonaya maamulada la jira oo kale bay noqonayaan cid ay garabsadaan kuwa kani waxay garabsanayaan waxa la socotaa European Union waa run dawladaha qarbiga maamulka Soomaaliya waqooyiga Soomaaliya ka jira waa lagu maalgeliyay waxba lagu siiyaa mashaariic baa lagu siiyaa waa lagu gorjooga buntan maxaa la bariga suuna waa la mid marka hadii dawladii Soomaaliyeed ay filayeen oo ay islaayeen waxba idin taraysaa oo idin gacan qabanaysaa iyadina halka joogto wad la socotaa oo maamulka hadda farmaajo madaxweynaha ka yahay maamulay dhiseen oo maxaa la yiraahdaa waxay dhiseen Hirshabeelle galmudug oo Cali Khaliif wuxuu yiri galmudug markii Xasan Sheekh dhisayay waanu tagnay hatta hadalkii baa naloo diiday buu Xasan noo diiday buu yiri ilaa waa ka joogay Cali Khaliif marka waxaynu xaq u lahayn iyagana in la dhiso wax oo nimanka madaxweynayaasha ay la dhisaan meelay sidaas ahayn ma horta way tahay sidaa waxa walba in aad looga fiirsado waa loo baahan yahay matalan dadka Soomaaliyeed badankiisu gobolkan galmudug maamulkan la yiraahdo waxa la si khaldan oo dastuurka waafaqsan buu dhisay dastuurku wuxuu leeyahay laba gobol iyo wax ka badan laga dhigi karaa isagana way noogno waa laba gobol iyo laba degmo marka marka hore sida taasoo kale ayaa loo arkayay inuu isaguna maamul goboleed buuxa noqonayn tusaale ahaan meelaha la degan yahay maamul kala ay wax badan ka dhaxeeya sida maamulka Soomaaliland kale sida ka warhaya Puntland degmooyin ama tuulooyin ka dhaxeeya dadka degan iyo dadkan gobolada degan ma jiraan laakiin Soomaaliland degmooyin baa ka dhaxeeya gobolada ka dhaxeeya magaalooyin baa ka dhaxeeya magaaladii dagaalka ay ka dhawaato ka hal district weey
waxayna leedahay laba maamul oo laba district camal u shaqeynaya taasna wax shaqeyn kara ama adduunka laga garan karo maaha waxaa la mid ah Cergaab oo kale haddii Cergaab aad tahay maamul baan anigu dhicay ka samaysanaya maamul qabiil lama sheegayo waxaan sheegaynaa dadka degan Soomaaliya sanaag ahaato isaaq ha ahaadeen hadii ha ahaadeen waa wada xaqiran saad la socod wariga dadka degan isaaq ahi wayaba wax ma qahaystaan intaas israacdo habar jeclada degta habar yurista degta dhul bahantii ursan gali maxaa la yiraahdaa gahayle maxaa la yiraahdaa madibaan neemden ma xasro horta wali lama gaadhin Soomaalidu ma bislaan in ay dad aan qabiilooyin ahayn ay samaystaan maamul samaystaan barigaan ku leeyahay arrimaha maamulka waxa ka qorqoray waxyaalahan qorqoray waxa kamid ahayd waa 4.5 kala maamuladan maamulku hebel maamulku hebel biya ka soo baxaya hadana sidii bay u yaagtay laakiin maxamed gobolkan la galmudug sagaal qabiilo oo aan ku shaqo isku lahayn baa sagaalka qabiilo waa dawladda heshiisay maal gelisay ciidamo dul dhigtay u samaysay ma sagaalka qabiilo sida kuwaas oo kale ma halka qabiilka hartiga wartagaliyo maanta iyo saaqba dhinac isku haya saasoo kale ma dhinac bay isku hayaan dad isku ilaa xad isku dhex jira maaha sagaalka qabiilada halka lagu sheegayo waa shan xabar gidira oo isku qola maxaan ku sheegay hiraab kale waa islo oo degmada Caleer degan hawiye kale oo Sheekhaali iyo mursada iyo waligood wada deganaayo isku dhaqan oo aan ma hayd isku deegaanka degmada Ceelbuur waligood deganaa ma degmada Ceelbuur yaa nimanka la cayrka iyo diblaha iyo maxaan ku sheegay mursada ay wada deganayeen abgaal karo waasir degmada waa gaarooda caws weyni waxa laga xukumaa caws weyni deejo waa laga yaabaa laakiin degmada Caleer ayaa gaaro iyaga cidna halka waa la degtay lama oran karo qoladan marxaan kana wargoodada isku dhex jiraan oo magaalada Dhuuso Barreeb leeyahay asaasoo kala jeclaan jirto qaar dhinaca habarkiisa dhinaca marxaan baa lahaa iyaguna ay ka soo ahaayeen laakiin taas way ka duwan tahay dawladda isku salbiisay iyaba isma ogol Soomaaliya reerna marka wali diyaar dadka qabiilooyin kan ay qabiiladan la iska dhaafo oo dadka deegaanka u samaysto waa fiican laakiin waa bisla tusaale ku siinayaa degmada Caynaba gobolka Sool ka tirsata nimanka degan ma ogola gobolka Sool maamulkiisa haddaba imkadaasoo kulligood Soomaaliland iskala ninka dhiisiga degmada Caynaba ما قبل ما يبادو oo loo soo xiriiray burcaynu ka tirsayo suudigaado oo qabiilkiisa ba taqaan u aamsiyay marka ma waxa xaaladaynu marayna heerkaas marka xaaladana xaal baa ku siiyay afar wasiir oo waaweyn oo mandaqada gobolka ka soo jiray ninka la yiraahdo maareeyo wasiirka iclaam waa sax waa sax ninka la yiraahdo maxaa la yiraahdaa planning ka haysta waa nin reer Sanaag waa sax ninka kalluumaysiga haysta waa Sanaag soor ninka haysta maxaa la yiraahdaa dastuurka waa nin reer Cergaab way marka haday afartoodaasi isku aragti noqon lahaa oo mandaqada wuxuu wada raadinay oo qabiilka iska dhaafnaa waxbay tarlaan kula tahay dad bay tar lahayn iyadoo awal bay jirtay sida qabiil dagaalada sokeeyay sida qabiilada kala qoqobeen ya hadana 4.5 iyo siyaasadina laga sii dhigo si kala qaybiyay oo marka wax tan ka dhaxayso isku yimaadaanba waxay isku leeyihiin deegaanka wax ka jira ay ka shiraan iska arkaan wixii horumar ay wixii kala ay ka wafraan laakiin suma yimaadaan laakiin suma imaanayaan ninna waa reebel qoladii reebel waxay u tagaysaa gooni u shiraysaa qoladii reebel marba madaxweynuhu la shiraya oo reebel oo kala oo hatta deegaanka soo kaadhay hadii la bari lahaa dadkii oo lagu maartay oo la deegaan hebel ama gobolada dadka soo jeedaan waxlada ka soo jeedaan la shiraya madaxdii qudheedii marba wuxuu leeyahay inay wixii si bumbuuninayaan si qabiilkii ay ku sii bumbuuninayaan marka arinta wali loo bislaano laba degdegin dad wax badan oo iska ka dhex jiraan gobolada sida ay tahay badanaaba kuwa dhaqaalaha yar dhisme kuwii kale waa kuwa oo iska daba wareegayo isoo haysto maxamed adigoo mahadsan waxa weeye gabagabadii baynu joognaa madaxweynuhu maalin dhaweyd gabadh buu jawaabi waayay weydiisay su'aal maxaad arinta ka oran wallahi arinta su'aasha madaxweynuhu jawaabi waayay anigu kuma qarayn aniga shakhsiyan kuma qarayn madaxweynaha wadabooyin fara badan yaa u fura dalka kan markii uu maxamed siyaad 90 December laga qabsaday meesha ama January laga qabsaday 91kii 18 gobol ayuu ahaa
sideed tobanka gobol oo kuwa qaar maamul loo sameeyay jireen maamulladii waa kuwa dhibaatadooda iyo xalkoodii loo fadhiyay hadda ilaa hadda arrinteedii gacanta lagu hayo Somaliland waa tuu ka hadlayay markii la weydiiyay isaga waa waqti annaka ka gaabino ballantii wixii ma taqaana laha dib uga dhacno yadana kiiskeedii faraha lagu hayaa gobollada kuwii cayankaas ahaa ee faraha lagu hayaa mushkiladana sidaas mushkilooyinkaas ay ka jiraan marka wali maxay qabaa arrinteedu in gacanta lagu hayaan qabaa ama wadada Somaliland inuu yiraahdo ay baad leedahay way asaas ku haboon ama wadada Somaliland bidda kamid ama kumamlada kala halkoodii baa iyadoo gacanta lagu hayaa badagane kuwaas iyaguna la mid halkooda wali raadinay gacanta lagu hayo laakiin waa adagtoo ka jawaabi maayo anigu wallahi madaxweynuhu intuu shabaab taabiyo ma ku qanacina kula tahay inuu madaxweynuhu ku cilqabay 2012 wuxuu yiri doorashan galaya nimankaana abtiyaal buu yahay doorta buu yiri nin baa noo sharaxan bay yiraahdeen markii hoolkii la isugu tagana ninkii u sharaxnaa ma aysan codkii maalintii dhaweyd oo uu sharaxnaana uu u yeeray baa la yiri wuxuu abtiyaal doorta waxay ku yiraahdeen balanbiin nooguma jirtid waxna helin baysid kariir baad dhaqanaysaa laga yaabaa inuu arrimahaas madaxweynuhu ma haday taas aniga taa horta lama aha laakiin haday ku jirtana sax maaha صح ما قف حدوث السماء أما أو مدحني السماء أما أبتدي ما حلو نقض أما قرابة حلو نقض أما هرت وحبوه يا محبوه لا مركو حلو كل وحودي أما قرابة حلو قرابة ده إنه حكيت لي أنا الآن وحيو ده وحول أحسن معها marka waa ka muuqato waliba marka dadkii mar walba loo dhacay qaar wax ku diidan qaar wax ku siiyaan marka kulligood madaxda u tahay marka mar raba sax kuma noqonayo haddii xitaa taasu ay ku jirto fikirkiisu intaasaan ku soo gabagabay daawadayaal iyo dhageystayaal insha Allah taala doodo badan baan sameyn doonaa halkani waa walwaal warbaahinta walwaal waxaad naga heli doontaan waraysiyo qiimo leh oo maaragtay dadka aqoonta leh Soomaaliyeed ay ku la faguraan Soomaalina waxaan leenahay dawladnimadayna deeqda waxaan leenahay qabiil macna ma leh laga tago qabiilka dadku siday maaragtay oo u wadaagaan siyaasadana ha u wadaagaan Soomaalinimadana hal la xoojiyo markaynu dawlad noqono dayacan waa ka baxaynaa waxa weeye maamuladan hadda maamulka Puntland oo kale anigu waan ka soo shaqeeyay jidka markaan ka shaqeynay jidka gaalkacayo iyo garowe laamigu waxa maantana waa sax shan casha loo dhaxa marka waxba ma ay soo kordhin marka Soomaalidu waa isku wada nooc wala waxay sitaan ilaahay naga saaro aad iyo aad baa mahadsan Yo ki dakisa, uye nehrena.